بسم الله الرحمن الرحيم وأنا سلامي وسيدي أي عدد وأهيد waxaan doonaynaa maanta inaynu ka hadalno dhir ku saabsan geed ku saabsan dhirtan ka baxda wadankeena geedkaas oo ah geedka loo yaqaano gobka siday Soomaalidu u taqaano qofka wanaagsan ee la doonayo in la amaano ama akhlaaqda wanaagsan ama deeqsiga ah ama sifaha wanaagsan lagu tilmaamayo waxaynu naahnaa qofkaasi waa gob okay maxaa loogu bixiyay gob geedkaasi maxaa gob loogu bixiyay dhinaca carabiga markaynu dib ugu laabano geedkani waa geed mubaaraga waa geed ku xusan quraanka xadiisyo badan baa ku soo arooray waxay carabtu u taqaanaa nabak xaggan cilmi diinigana waxa loo yaqaanaa carabiga sidir okay sidirku geedkan gobka aynu u naqano nagu waxa aan doonayaa inaynu la ogaataan horta geedkani waa geed mubaarak ah sidaa darteed ma galo jinku iyo waxa ruuxaaneedka waxaan cayaanka ahee qoryaha cunaa ma galaan laantiisu ama ushiisu ma jabto waa adag tahay mana baalido ليش وايو gobka waxaan horta wuxuu ka kooban yahay waa midho iyo caleen iyo qolof iyo xidido waxaanu ka hadlaynaa maanta caleenta kaliya caleenta gobka marka aad xagga kale u rogtid xagga cirka eegimase xagga kale markaad u rogtid isaa u eegtid waxaa ku qoran magaca ilaahay allah oo af carabi baa ku qoran سبحان الله marka waxaa ku soo aroortay axaadiis oranaysa 7 caleemood oo geedkaas ayaa kaaga filan inay ka daaweeyaan waxa loo yaqaano isha qofka ishu ku dhacdo ama xasadku ku dhaco waxaa ku soo aroortay orasay sida dhoobadu biyaha ay u maydhaan ayay u maydhaan waxaana lagu akhriyaa 7 alxamdulillah iyo qulwalayaasha meel daahirana waa la tagaa waana lagu qabaystaa sida ay hadisku binniya allahu shaafil kaafi way marka loo eego dhinaca skinka ama jirka waxyaabo badan oo allergic buu ka dawo yahay madax xanuunka caleentiisu waa ka dawo waa lagu maydhaa caleentiisa caleenta gobka inta la qalajiyo wax lagu maydhaa madaxa lagu maydhaa inta la ridqo jirka allergiga wixii allergiga xasaasiyadda ah laanta waxaynu nahnaa inagu waa ka dawo cudurro badan oo noocaas ayuu ka dawo yahay wuxuu kaloo ka dawo yahay caleenta qoyan waxaanay u naqaano labdilaaca haddii aad 2 caleemood soo goosatid si fiican u maydhid iska maydhid waad calashatid xab buu noqdaa markaad laqdid caloosha labdilaaca uu baabi'iyaa isla markiiba within 3 minutes ayuu baabi'iyaa 3 daqiiqo gudahood ayuu ku baabi'iyaa waxa la yiraahdo labdilaaca geedkan gobka la yiraahdo waxyaabo badan oo uu ka dawo yahay baa jira oo macnaha ku saabsan skinka iyo waxyaabahan ruuxaaniga loo isticmaalo ee loo niyeysto inuu ku daweeyo qofka bani'aadamku insha Allah ta'ala dhir badan oo kale ayaa jirta oo ku soo arooray xadiisku waynu ka wada hadli doonaa laakiin geedka gobka la yiraahdo saan idin sheegay wuxuu ka dawo yahay labada maado iyo waxyaabo kale oo insha Allah aan gadaal idinka soo xusi doono insha Allah ta'ala hadii ilaahay fursad kale nasiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.